degdeg ciidamada beesha ciise oo la wareegay saylac ciidamadii ugu badnaa oo xadka Jabuuti ka soo tallaabay maamulka Somaliland oo laga saaray saylac faahfaahin kala duwan oo halkaasi ka soo baxaya dagaalkii saacadii ugu dambeeyay iyo waliba sidoo kale xaalada guud ee saylac ayaa rabaa daawada in caawa halkan kugu la wadaago ilaa dhamaadka muuqaalkan nala dhamayso 3 daqiiqo waqtiga ka mid ah jaanis daawada soo dhawaad hagaag halkan aad naga daawanaysaan waa Macaash Media haddii ay tahay markuu ugu horeysay fadlan kanalkan rukumo oo subscribe dheh muuqaalkan aad daawanaysana like garay qaybta hoose ee faaladana aragtidaada noogu reeb daawade sidoo kalena sii share garay oo saaxiibadaada la wadaag muuqaalkan maasanideen hagaag aynu ku bilaawno habeen wanaagsan Ramadaan Kariim ayaan mar kale idin leeyahay faahfaahin kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaal xooggan oo u dhaxeeya beesha ciise iyo waliba sidoo kale beesha Samroon oo maalmihii u dambeeyay ay halkaas ku wada dagaalamayeen ciidamada kuwa dhanka Somaliland waa beesha Samroone kuwaas ayaa maalmihii dambe dagaal xooggan waxa ay ku hayeen beesha ciise oo guul taariikhi ah mar kale afka ciida u dirtay beesha Samroon beesha ciise ayaa sida hadda muuqanaysa dagaalkan si weyn uga guuleysteen iyagoona ciidamadii ugu faraha badnaa ee dhanka Jabuuti ka soo tallaabay iyagoona dagaalkan qayb ka qaadanaya maalmihii dambe deegaano waliba sidoo kale tuulooyin waliba sidoo kale deegaano hoos yimaada tuulada durdur iyo waliba sidoo kale qaybo kamid ah ayaa dagaal xooggan waxa uu ku dhaxmarayay ciidamada beesha ciise waliba sidoo kale kuwa beesha Samroon dagaal faraha la isugu gubtay oo aan waxba la isku reeban ayaa toddobaadadii u dambeeyay halkaas ka socday iyadoona hadda aynu maqlayno ama xoga aan helayno ay sheegayaan in waan ay socoto oo suldaamada iyo waliba sidoo kale nabdoonada ay si weyn uga shaqeynayaan in xaaladda markaasi awdal la dejiyo balse xaaladdu waxa ay naqatay dharigii labada dhinac ka gubtay ay naqadeen Samroon halka beesha ciise oo iyagu dagaal xooggan ay ku soo qaadeen dhanka Samroon ay meelo badan ay ka saareen iyagoona ay ku sii fogeeyeen ilaa ay magaalada Boorame xilli aynu ogsoonahay in dagaal halkaasi uu ka qarxay uu ahaa mid ka mid ah dagaaladii beelahan ay wada dagaalameen iyagoona 10 markaasi aan hore loo dhigay beesha Samroon beesha ciise waxa ay sheegteen in ay guween gaadiid dagaal oo ay leeyihiin beesha Samroon sidoo kale tuulooyin iyo deegaano oo ay beesha ciise ay lahaayeen ay kaga sugnaayeen beesha Samroon in gabi ahaan bay kaga guuleysteen inay banaanka uga saaraan dagaalkan ayaa dhowrkii maalmood halkaasi ka socday iyadoona awdal ay naqatay furin dagaal oo ay isku heestaan beelaha Samroon iyo waliba sidoo kale beesha ciise oo ah mid ka mid ah beelaha ugu awood badan ee halkaasi degan dagaalkan waxa uu naqanayaa mid aanan horay filashadiisu aan ahayn in beesha ciise ay guuleysan karto haddana libinta dhankeeda ayay martay ciidanka beesha ciise ayaa lagu soo waramayaa in ay la wareegeen gacan ku heenta magaalada Saylac iyadoona la sheegayo in ay ciidamo badan ay ka soo gudbiyeen dhanka Jabuuti warar hordhac ayaana tilmaamaya in xiisad kacsanaana ay ka jirto gudaha magaalada isla markaasna maamulka Somaliland laga saaray xarumihii ay ku lahaayeen Saylac dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo waliba sidoo kale dhaqdhaqaaqyo dadweyne ayaa lagu soo waramayaa inay qayb ka mid yihiin magaaladaasi ay ka socdaan ilaa iyo hadda ma jiro war rasmi oo ka soo baxay dhinacyada markaasi arintan khusayso waxaana la filayaa in saacadaha soo socota ay soo baxaan faahfaahin dheeraad oo xaaladda markaasi ay wali kacsan tahay iyadoo dadka deegaankuna ay muujinayaan walaac ku aadan amniga iyo waliba sidoo kale xasiloonida guud ee gobolka maamulka Somaliland ayaa gabi ahaanba Saylac isaga baxay kadib markii dagaal xooggan ay beesha ciise ay la galeen dhankooda ee beesha Samroon xaaladda ayaa hadda ah mid aan la qiyaasi karin walow ay haddu markaasi wararka qaar ay tibaaxayaan in hadda halkaasi ay ka jirto xaalad deganaana labada beelood iyo waliba sidoo kale suldaamadooda iyo nabdoonadooda oo ka shaqeynaya sidii ay dadkaasi xabad joojin loogu sameyn lahaa horay ayay sidan oo kale u dhacday in beelahan la kala dhaxgalo balse beesha Samroon ayaa la sheegay in ay xabadu bilowday maantana iyadu ka gacan hooseyso taasoo ku muujinayso awoodda beesha ciise taas oo ay isku day walbo lagu markaasi doonayo in lagu ciribtiro ay diyaar u yihiin sidii ay uga hortagi lahaayeen xaaladda Saylac iyo waliba sidoo kale guud ahaan gobolka Awdal ayaa ah mid aad u kacsan
xilli maamulkaasi Somaliland ay halkaasi ka howlgalayeen gebi ahaanba xafiisyadii waliba sidoo kale goobihii ay ku sugnaayeen ay gebi ahaanba isaga baxeen beesha ciise hadda ayagu baruursi waliba sidoo kale ciidamo tiro badan waxa ay ka soo tallaabsiinaysaa xuduudda Djibouti iyagoona doonayaan in dhankooda Somaliland ay meel saaraan balse xaaladahan ayaa maalmihii dambe waxa ay noqotay inta aan la gelin bisha barakeysan ee Ramadaan goob fagaaraha halkaasi la isku dagaalo xilli meelaha la isku dagaalay ay yihiin goobo bannaan buurooyin iyo waliba sidoo kale meelo kala duwan oo dhulalka labadan beelood ay kala tirsanayaan xaaladdu ayaa ah mid aan sansaalaneen haddii maamulada Djibouti iyo Somaliland aysan si dhab ah u arrinkaasi u wajihin waxaa dhici karta baabi'in waliba sidoo kale shacab inay halkaasi ku baaba'aan iyo wiilal dhalinyaro ay halkaasi naftooda ay ku waayaan maamulka Somaliland oo maalmihii dambe raadinayeen ictiraaf ku aadan dhanka Israel ee Yahuudu ayaa doonayaan inay iyaguna qaybtooda ay dhankooda dhulkan ay ilaashadaan xilli dawladda Soomaaliya ay qorsheynayso in awdal state ay halkaasi ka taagto balse xaalku waa uu markaasi allow sahal daqiiqad walba oo ka dambaysa waxa ay noqonaysaa goob cakiran iyo waliba sidoo kale jawi muruga ah maxaa yeelay beesha ciise ayaa ku gacan sareysa halkaas iyagoona beesha Samaroon iyagu wax natiijo halkaasi ka heynin ayay dagaal xoogan ay mararka qaar ay la galaan dhanka beesha ciise dagaaladan ayaa sii daba dheeraaday iyagoona dhowrkii bilood ee u dambeeyay ay halkaasi isku fadhiyaan dadkan walaalaha ah balse xaaladdu ayaa hadda ah mid aad u kacsan inkastoo wararka qaarna ay sheegayaan in xaalad deganaansho ay jirto haddana daawade beesha Samaroon ayaa markaa la sheegaya inay ku awoodsaneeyaan xagga ciidan xuduudda ciidan iyo waliba sidoo kale gawaarida dagaalka iyo dhululka ay lahaayeen beesha ciise inay guud ahaanba iyagu hadda gacanta ay ku haystaan maamulka Somaliland ayaa dhankooda wali arrintan kama aysan hadlin inkastoo wasiir iyo waliba sidoo kale dad aanan ku habooneen ay arrimaha noocan oo kale ah ay ka hadleen balse xaaladan ayaa sii cakirnaan karta ilaa ay dadku deegaanku waliba sidoo kale nabadoonadu ay si weyn u wajahaan arrinkan iyagoona nabad aan markaasi xabad joojin aan la kala dhex dhigin inkastoo hore sidan oo kale loo sameeyay ay mar kale hadan isku soo laabteen waxaan rajeynaynaa maadaama dad Soomaaliyeed ay yihiin inay nabad dhex dabaalaan oo dagaalka halkaasi ku joogsamo daawada adiga aan maxay kula tahay qaybta hoose faalada aragtidaada noogu reeb sidoo kale kanalkan noo subscribe dheh oo muuqaalada aan soo gelino xogaha iyo waliba sidoo kale warbixinada ku aadan si ay ku soo gaaraan daawade haddii aad halkan la soo gaarto xataa qof qalbi wanaagsan waxaan saasina xariis ay kaaga codsanayaa inaad YouTube-ka soo subscribe gareysid muuqaalkan la like gareysiin share garey saaxiibada la wadaago kuma santiin daawashada muuqaalkan ma sanidin